بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال كلنتي وعنا wanaagsan ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii fanka suugaanta oo aan wadahayo kale ka soo gudbino telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka fanka suugaanta oo aan ku soo gudbino daawadayaal arrimaha la xiriira dhanka fanka iyo suugaanta afka Soomaaliga ayaa toddobaadkan waxa noogu marti ah guuleed ayaan leh Axmed Cumar oo kamid ah dhalinyarada reer Soomaaliland guuleed waa nin in badan waqti galiyay oo cilmi baaris ku sameeya dhanka suugaanta iyo afka in aynu leenahay ee afka Soomaaliga waxaan wax ka weydiin doonaa aqoon badan oo ku saabsan cilmi baarista uu sameeyay ee afka iyo suugaanta la xiriira isagoo barbar dhigaya afafka kale ee adduunka in la isticmaalo guuleed ku soo dhaw barnaamijka aad iyo aad bad maasantay Mubarak Cabdi Yuusuf fursadan qaaliga ah ee aan TV-ga qaranka maanta ku joogo run ahaantii waxay ii tahay aad baan ugu haweynahay inaan maanta halkan joogo kula joogo soo martay qaata barnaamijka aad iyo aad bal hadda waxaan jecelahay in aynu afka iyo suugaanta labadaba aynu eegno haddii aynu ku horeyno horta guud ahaan bal afka waxaan jecelnahay bal hadda sharax kooban afku muxuu yahay qiimaha afku leeyahay mudnaanta iyo muhiimadda uu leeyahay oo kamid ah waxyaabaha aadmigu kaga duwan yahay noolaha kale bal haddii noo sharaxdo waa su'aal wanaagsan Mubarak guud ahaan horta afku sidii uu Ilaahay noo sheegay afku waxa weeyaan aayad uu Ilaahay ku galaday abuurkiisa afku waxaynu kaga soocannahay ama inaga soocaya xayawaanka iyo noolaha kale ee inala nool sax haddii aynu dib ugu noqono inuu quraanka marjac u soo qaadano markii Ilaahay nabi aadam abuurayay malaa'igta wuxuu kala tashaday inuu abuuri doono abuur cusub oo tii malaa'igtu dood ka keentay qorshaha Ilaahay lahaa sax Ilaahay dabadeed markii uu qolada la doodayay wuxuu ku buriyay uu soo daliishaday ku buriyay inuu aadam baray kelmado ereyo afka magacyo ayuu baray magacyadu waxa weeyaan waa afkuna magacyo haddaynu ka si kala u dhigno afka gabigiisu waa magacyo halka kale Ilaahay wuxuu ka sheegay ar-Rahmaan allama al-Qur'aan khalaqa al-insaan allamahu al-bayaan inuu Ilaahay baray afka ومن آياته وادنا إلهي آيات كل شيء إن أنا أبو الري وح آيات كذا كمذا إن أنا أبو الري المحور هاي أفف إن أنا ندي سمين أفف كل الدول اللي بنا إن أنا ندي سمين مركا هدي أينو ساق هامنا أفكو وحوي مروة communication إن لقوا الحيل إن لقوا الحيل أي المحور هاي تذكر كل ورقة عتان إما كوحي أنا جودها يكتره هدي أنا أفكو جسوا كتبين مو كريس يا وحي فكرة لا wixii dareenay gudaha ku jira hadii aan hadal kugu soo gudbin ma dareemi karis marka afku waxa weeyaan waxa galada inta leeg ee Ilaahay bini'aadamku galaday ee inaga soo cayay abuurka intiisa kale halka kalena waxa lagu sheegaa afku inuu yahay fikirka qalabka fikirka laftigiisa inuu yahay afku oo imika hadaan af jirin qofku ma fikir karo qof kasta wuxuu fikir karaa markuu af yeesho ayuu fikir karaa marka fikirkii iyo afkii way isku sidkeen wala way isku sidkeen marka muhiimadda afku leeyahay waa taa intuu afka ka yaqaan ay ma fikir karaa kulba gaari aba oran jiray ba vocabulary qofku leeyahay ayuu fikiraa aqoon ahaan waa sidaas loo dhigay oo linguistically afku waxa weeyaan iyo fikirku isku xidhay waa laba shay oo kala maarmin marka waxa faa'iidooyinka uu afku leeyahay waxa kamid ah iyaduna in la dhintay aqoontii ya aqoontii in la dhintay oo shalay aqoontii weyn la waqo isku dhiibay ilaa nabi aadam wixii ay deesoo kala dhaxlayeen jiilba u dhiibay waxa la isku dhiibayna waa af hadaan af jirin aqoon lama heleen ilbaxnimana lama heleen dadkuna dadka ma socnaadeen xayawaanka kale bal hadda aynu u nimaadno afka Soomaaliga afka Soomaaliga bilowgiisii iyo oo lagu tilmaamo inuu yahay afafka ugu facaweyn guud ahaan luqadaha adduunku ku hadlo inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in afka Soomaaliga ay jiraan luqado ka sii waaweyn sida luqadda Carabiga oo kale haddana afkaarta dad burinayaan ay jiraan oo dhinaca kala bal hadda ka waran arinta waa su'aal wanaagsan iyo horta waxay dadkeenii Soomaalida ahaa horta waxba ku yar dhacay dhowr waxyaalood oo isbiirsaday dhinac waxa weeyaan horta halkii diinta oo imika kale diintii aynu jeclayn ayeen u oranayna markii la yiraahdo imika hadii qof Soomaali la weydiiyo jacaylka diinta jiidanaya ayaa jiidanaya imika qof Soomaali la weydiiyo la yiraahdo afkeeba ugu daaweyn wuxuu oranayaa markiiba af Carabiga qof kale oo
qolada la yiraahdo Juda Christianity-ga Yuhuudda iyo Kristanka haddii iyaga la weydiiyo la yiraahdo afkee u facweyn cibriga oranayaan afka Yuhuudda ku hadasho haddii la weydiiyo Hinduuga haddii la yiraahdo afkee u facweyn iyaguna waxay oranayaan waxa ugu facweyn afkan Taamilka ay ku qoran tahay diintooda marka waxyaalahaas waa waxyaalo la xiriira diinta iyo jacaylka qofku jecel yahay diintiisa xaqiiqdu laakiin taama xaqiiqdu waa tu kale imika afka Soomaaliga af Carabigu waxa ka soo wada jeedaan muxuu ahay qoys afeed la yiraahdo Afro-Asiatic markan Afro-Asiatic leenahay magacaas waa magac imika loo bixiyay xilligii ugu horeysay ee wax laga baaray afafka in afafka muxuu ahay la baheeyo oo muxuu ahay isku meel la geeyo qarnigii 9aad ayay bilaabantay nin la oran jiray Yuhuudi deganaan jirtay Algeria ahaayo la oran jiray Yuhuda bin Quraysh ayaa markii ugu horeysay wax ka qoray waa qarnigii 9aad qoraalkii ugu horeeyay laga hayaa in afafka la bixiyo isagu wuxuu bixiyay marka afkan Samatiga uu ka yaqaan Carabiga iyo cibrigu ku hadlayay iyo barbarka berberi nimanka berberiinta la yiraahdo waqooyiga Afrika ayuu dabadeed halka waxa 10 qarni dabadeed 1000 sanadood dabadeed qarnigii 19 ayay waxay bilaabeen nimanka reer Yurubna inay halkiisii inta ka sii qaadaan ay sii balaariyaan marka nin muxuu ahaan jiray Australia wadankan Australia oo ku xil dheeraa afka luqadaha ku xil dheeraa ayaa wuxuu sameeyay afka 1876 ayuu wuxuu helay wuxuu bixiyay isaguna Semitic iyo Hamitic marka afkii wuxuu bixiyay Hamito-Semitic ayuu bixiyay Hamito-Semitic marka maxay tahay Semitic waxa weeyaan qolada isagu marka wuxuu raacay nidaam kalarka ah midabka oo respectiisu fadhiday intii midoobinda wuxuu ka dhigay Hamitic marka waa kushatigii afkii ay ku hadli jireen masaaru afkii masaaru ay ku hadli jirtay barbarka iyo afka ay ku hadlaan qolada saaxil dhulka la yiraahdo galbeedka Afrika Nigeria iyo meelaha laga hadlo ayuu ku bixiyay wuxuu inta yiri waa intii midoobada wuxuu bixiyay Hamitic qoladii kale ee Carabta iyo Yuhuudda iyo kuwan wuxuu bixiyay Semitic labada magacna waxa uu ka keenay labadii caruur ee uu dhalay Nabi Nuux Sam iyo Ham ayuu ka kala keenay Semitic iyo Hamitic muddo dheer marka afka waxa loo yaqaanay Hamito-Semitic ilaa laga soo gaaray 1956 oo nin Ingiriis ahaa oo Greenberg leeyahay oo isagu daadafeeyay taasoo Afro-Asiatic bixiyay marka labadii magac waa la isticmaalaa hadaba haddii soo noqono su'aashii af Carabigu iyo Soomaaligu waxay ka wada tirsan yihiin qoys afeedka la yiraahdo Semitic Afro-Asiatic ay ka wada tirsan yihiin marka koobaad Afro-Asiatic marka waxa la isku hayaa qolaba in bay ku sheegtaa aqoonyahanadii wax ka baaray laakiin waxa la isla meel dhigay in 7500 ilaa 15000 sanadood muddo aynu ka joognay in lagu hadli jiray xilligaasi hal qoys afeed u ahaa wixii xilliga ka dambeeyay ay kala jabjabayaan oo si farcameen ay si farcamayaan imika hadii aynu tusaale soo qaadano horta waxa yar wanaagsan in halka yar iftiimino Carabida iyo Soomaaliya tabalna iftiimino af iyo lahjad waxay kala duwan yihiin labada aynu dadka uga sharaxno waxa la yiraahdaa afku markiisu hore hadii bulsho meel wada degan tahay bulshadaas afka ku hadashaa midna kolka Hargeysa dadka degan ka isku afkaranayso afkaas ku hadla hadii hadaba Hargeysa dadka wada deganaa ay kala guuraan oo muddo kala maqraadaan 100 sanadood 200 sanadood ay kala maqraadaan waxa soo kobcaya kala duwanaansho labadoodu dhaxay halka dhawaaqa marka hadii la isfahmi karo mutual intelligibility wax leeyahay ay ku macnaayeen qolada afafka waxa ka shaqeysa waa afkiiu hadii la isfahmi karo bay yiraahdeen waa lahjad dhawaaqyada kala duwan laakiin hadii la isfahmi karo wax lagu kala duwan lahjad mar laakiin hadii ay gaadho sheekadaas inaan la isfahmin afba bilaamay laba afo kala duwan bay noqdeen waxay marka afku ku yimaada labada reerka meel wada deganaa kala guuray bulshada meel wada deganaa kala guurtay hadii markii hore ay xoolo dhaqato ahayd midna kale noloshoodu ay ama beeraley ahayd ama kalluumaysato ahayd markoodii hore markay kala guureen qolada guurtay imika midna kale waxa ka soo qaadanay inay xoolo dhaqato ay ahaayeen bulshada guurtay hadii ay bedelato noloshoodii hore oo ay beeraley noqoto istaarka noloshooda ereyadii hore ee la wada yaqaanay kuwa way ka baxayaan qaar kale isticmaalaya ereyadii geelida ma haystaan way ka baxayaan ereyo kale waxa uu bilaamaya beeraha la xiriira ayna ku la garanay marka waxay dadijinaysaa taas in laba afo kala duwan ay noqdaan marka hadaba 7500 sano horteed ayay qoys afeed loo bixiyay imika Afro-Asiatic ay meel wada deganaayeen midna kale meesha ay wada deganaayeen waxa lagu sheegaa inay geeskan Afrika tahay
geeskan afrika inay ahayd ayaa ayaa la sheegaa inkastoo saddex waxyaalood la sheego geeskan afrika waqooyiga afrika iyo dhulkan sham leedahay laakiin labada kale way daciif doodaas ta xooga ahi waxa weyn geeskan afrika ay labada af degnaayeen ay qoomiyad loo bixiyay imika afro-asiatic ama hamitosemitic ee geeska afrika u degnaayeen haddaba maxaa dhacay qola guurtay wala naqa la raacay waxa loo baxay muxuu ahaayay meesha la yiraahdo niilka halka gudaha Ethiopia niilka la tagay niilka markii la tagay boqortooyada ka bilaabantay boqortooyadu horeysa adduunka bilaabantay boqortooyadaas waa boqortooyada faraacinta halka marka dadkii faraacinta ku hoos noolaa ilaa halkan isku afal lagu hadlaa haddaba dadkii faraacinta saluugay ama si kale uga baxay ilaa dadku way korayaan ayaa u baxay dhulka la yiraahdo inta Swiss kana ka baxeen sham tagay faraacinta ka sii baxay ayaa sham tagay halka markii sham tageen sidaynu ka sheekeynay bika weyn way go'doomeen halka marka waxa ka abuurmay af cusub oo la yiraahdo Semitic leeyahay Semitic oo ka go'ay bulshadii hore ka go'ay qaybta laga go'ayana waa afkan la yiraahdo Hamitic Hamitic ay faraacinta kushitiga waxa loo leeyahay isku ayaa laga go'aya nin la yiraahdo Richard Barber leeyahay oo Ingiriis ah ayaa buug u qoray oo hordhaca taariikhda Ingiriiska u bixiyay ayaa wuxuu isagu toos u sheegayaa labadan af ee Hamitic iyo Semitic inuu da'weyn yahay afka Hamitic ah oo Semitic uu yar yahay waliba wuxuu sheegay Hamitic waxa ka sii nool buu oranaya af lahjadaha buu ku tilmaamaya lahjada faraacinta waa la jirtay Soomaaliga iyo Barbarka ayaa ka sii go'ay Carabigu haddaba markay halka tageen taariikhda Carabigu halka markay Semitic wada tageen haddana hoos baa loo raacay waxa loo socdaa Semitic qola haddana sii socotay oo Sham ka tagtay oo jasiiradda Carabta intii hoos u raacday ilaa iyo imanaysa muxuu ahaayay Yemen dhulka Yemen soo gaadhis koonfurta jasiiradda Carabta soo gaadhis halkaas marka af Carabiga imanaya goortan af Carabigu imanaya waa mar dambe oo waxa weeyaan 1000 sanadood ka hor Nabi Ciise dhalashadii Nabi Ciise 1000 sanadood ayuu af Carabigu halka imanaya waxa halka ku bahalaysmay haddana Carabigii waxa ka soo go'ay haddana oo dib ugu soo noqonay geeska Afrika qaybtan giiska la isku yiraahdo giis ee ay ka mid yihiin Ethiopia laga hadlo ay ka mid yihiin Tigreega muxuu ahaayay Amhariga muxuu ahaayay guraagada ay ka mid yihiin ayaa dib u soo go'ayay marka ay waxay ka sii yiri kabada Carabiga ku badan ha Carabiga ka sii yiri halka Semitic xagga Carabiga ka hoos galaan Semitic Carabiga la baahiyin markaas haddana dib loo wada noqonaya waxa markaysa markaas sida la isku riixayo inuu afku kala baxayo ayaa markaysa halkan kalena afkan afro-asiatic la yiraahdo waa afka adduunka ugu daada weyn inta qoysafeedada nimka la sameeyay adduunka dhowr 10 qoysafeed baa jira waa qoysafeedka ugu daada weyn 300 af ayuu ka kooban yahay tiro 500 half billion qof ku dhow ayaa ku hadla muxuu ahay waxa ka weynuun afkan la yiraahdo qoysafeedka la yiraahdo Indo-European muxuu ahay oo laga hadlo ilaa iyo laga hadlo muxuu ahay Hindiya ilaa Yurub laga hadlo Indo-European oo ah afka ugu daada weyn Iran Hindiya sidaa u socod Ruushka ilaa Yurub laga hadlo iyo Sino-Tibet af la yiraahdo qoysafeed la yiraahdo indha yartaasi China iyo dhulka laga hadlo iyo ku laga hadlo Afrikadan hoose oo la yiraahdo muxuu Congo la yiraahdo ay saddexda qoysafeed ba ka weyn xagga tirada isagu waxa way ka afraad halka kala da'dana waa qoysafeedka ugu daada weyn oo 7,500 ilaa iyo 15,000 sano horteed ayaa lagu hadli jiray xilligaasina haddaynu si kale u dhigno waa xilligii Nabi Aadam oo Nabi Aadam adduunyada imika hadaad ku eegto muxuu ahaayay labada bahaloodba diimaha samaawiga diinteena Nabi Maxamed iyo taay Jewish Tawraad hadaad labadaba eegto 8,000 sanadood 9,000 sanadood ka hor xilligan joogno ayuu Nabi Aadam noola ay labaduba sheegaya marka 7,500 sano marka la leeyahay qoladan ay leedahay afka lagu hadlay waa xilliga Nabi Aadam dhexdiisa ayaa lagu hadlay haddaba sida markaynu sheegnay af Soomaaliga inuu ka da'weyn yahay af Carabiga ayaa inoo muuqata صح halka kalena taariikhaha qoraalka ee laga hayo afro-asiatic waxa ugu da'weyn 3,500 oo sano Nabi Ciise kor oo imika noqonaysa 5,500 sano kor noqonaysa waxa weeyaan qoraalada la helay waa qoraaladii ay ka tageen faraacintu oo de afka kamid ah afkan afro-asiatic kamid ah faraacintu ay ka tageen taas xaqiijinaysa marka inuu afkan xilliga lagu hadli jiray faraacintuna waxa weeyaan de waa Soomaali markaynu si kala aynu dhigno waa dad af Soomaali buu ahaa afkoodii marka dib loo akhriyay af Soomaali buu galay marka tan qoladan ku doodaysa af Soomaaliga iyo Carabiga diin jacaylun bay ka tahay laakiin cilmi ahaan labada afi sidaas ay u kala da'weyn aad
aad in bal hadda aynu ku sii dhaadhacno luqadda afka Soomaaliga in qoraalkeeda iyo arrimaha la xidhiidha iyo halka asal ahaan qoraalka afka Soomaaliga ku yimid horta dad badan waxay ku doodaan oo yiraahdaan malaha carabkuna uu ka xadaa af Soomaaliga waa qabyo af Soomaaliga qabyo ma aha fartiisa qabya fartan inuu qaadanay 12 kilo qoray ayaa qabya laakiin afku af dhamaystiran oo buuxa horta niyo taariikhda qoraalku way dirweyn way fogtahay oo waxana lagu tilmaamay inay tahay guulihii ugu waaweynaa bini'aadamka adduunyada ku noolaa inuu wax qoro ayaa ah guusha ugu weyn bini'aadamka adduunka soo kordhiyay haddaan qoraal iman lahayn aqoon min dhaxleen aqoonta nimka halkan adduunka ay gaadhay teknolojiyadani waxaan arkaynaa qoraal bay ku timid haddaan qoraal jirin wax lama dhaxleen taariikhda qoraalku waxa iska leh faraacintii ay ka timid oo guulihii waaweynaa faraacinta adduunka soo kordhisay waxaana la yiraahdaa fartooda waxa la oran jiray hieroglyphy ayaa la oran jiray fartaasi faraacintu waxay ahayd sawiro la sawiri jiray ma ilahan jirin xuruuftan aynu ku qorayno laakiin sawiradan ay sawirayaan ayaa macno weyn ku fadhiyay haddaba xilliga ayagu ay sawiri jireen ayaa qolo badmareen ahaan jirtay oo la oran jiray Phoenicians oo Samitiga la bax oo ku noolaa dhulkan imika Lubnaan loo yaqaan ayaa fartii intay qaadeen fudeydii tii sawirada ay intay ka qaadeen ay fudeydii imika markuu faraacinta ay sawirayso ba ay doonayaan adinka intiisa hoose ay sawirayaan waa biito ayuu yaqaanaa adinka intiisa hoose hadaad eegto waa bacdi way fudeydiyeen kuwaas qoraaladu bay fudeydiyeen muxuu ahaayay faraacinta markaa waxay u taqaanay alif baa ugu horreeyay biita ku xigtay waxa halkay ka timid marka alfabeeto ay ka timid oo ah alif biito qolada markaa Phoenicians ka leeyahay laba qolo ayaa fartii ka kala qaatay qolo Greek qaatay oo Latinka Europe ay soo gashay qoladaas markaa waxay noqotay alphabet bay noqotay fartooda qolo kale oo cibrigan iyo carabiguna waxay ka soo qaateen iyaguna qaybtan kale loo bixiyay abjad kale oo ah afartii xaraf ee ugu horeeyay alifka ugu horeeya biitada ku xigta gambad ayaa ku xoogaada ay u taagan tahay iyo dudun oo intaas qoladaas markaa afar xaraf isku qabato abjad carabigu gaama leh markaa jiin buu bedelay abjad laakiin cibrigu gaadi uu leeyahay abgad isaga abgad giciskan Ethiopia laga hadlo abgad isagana laakiin carabigu gaama laho jiin buu ka dhigay abjad halkaas markaa loo kala qaatay haddaba labada af maxay kala duwan abjadka iyo kan kale la yiraahdo muxuu ahay alfabetadu waxay ku kala duwan wax kala ma abjadku ama abgadku ma laha shaqalada wuxuu yaqaanaa xarakooyin laakiin se markuu alifbataasada tirinayo kuma jiro wax shaqale alif ba ta jim ha saasu kuma jiro markuu qorayo imika akala uu qorayo alif kaaf iyo lam buu qoraya ma jiro wax u dhaxeeya qolada kale ee la yiraahdo alfabetkuna iyo waxay leeyihiin fartoodu waxay ka kooban tahay xuruuftoodu waxay ka kooban yihiin shibanayaal iyo shaqalo vowels iyo consonants bay ka kooban yihiin labaas ka kooban inta kala duwan marka waa inta haddaba inaga markan aynu 27 ka qaadanayno mushkiladda nagu dhacday farteeni iyo faraacin day ahayd faraacintu ilaa Soomaaliya oo qoraalkeeda imika haddaynu mid u sheegno haddaynu sheegno mid baaba magacii Soomaali bay leedahay imika wanaga baadin waa biito xariga markuu doonayo xarig soo han weey ya tiida kullu markuu doonayo wuxuu sawirayaa bar gur la degay waa bar la degay markuu doonayo inuu helo hud buu sawirayaa hud yaro san loogu laabayo ayuu sawirayaa afka loo macnay karaa imika ma jiro haddaynu dhahno xuruuftan xaga ka timid imika carabigu sidoo waxa jira qaaf baa jira xarf qaaf leeyahay ya qaafku waa qof faraacintu wuxuu sawir jirtay qof inta sidaa madaxu ugu sameeyaa ayay labadii liidkiina dhexda ka mari jiray xariisintii ay ka oo qof sidaas oo kala ay sawiraya oo madaxiisina kay marka qof bay ugu dhawaaqay laakiin carabti maxay ugu dhawaaqtay qaaf bay ugu dhawaaqay muxuu ahay giciskan Ethiopia laga hadlaa isagu qof buu ugu dhawaaqa Greegu kaab ugu dhawaaqayo qaamalo kaab ka dhigaya faana malo baab ka dhiga kaab ugu dhawaaqaya Yuhuud laakiin qaf bay ugu dhawaaqday iyaduna sidan Soomaaliya kale ugu dhawaaqan imika isagu waxa jira shiin baa jira shiin xarafkan shiinka haddaad shiinka u fiirsato sidoo sawiran yahay waxa weeyaan waa ilkihi Soomaalidu iliga waxa u taqaanay af Soomaaliga saxda ah shin baa loo yaqaanaa
oo ereyo badan ku arkayso Soomaaliya uu shan tirsada marka lagu leeyahay waxa weeye shankiis wax buuxsameelkiisa buuxsameeha uu qaan gaarowkiisa buuxsameelkaas uu shan tirsada muxuu ahaayay shimbirta shinkeeda bira iligeeda bira weey iligeeda bira waa shimbir iligeeda bira muxuu ahaayay inta waxaynu dhahnaa bishin waa tii bilaysa shinkay bisha ma garad shinkii marka waxa weeye waa ilko faraacinta soo soo jirta afkii hadaba sida ahaa ayaa 27kii intii waxaaba tuuray ayuun baynu nuru laatiimir qaadan laatiinkeenu qaadan in lagama fiirsano lama oran war afkayba Soomaaliga horta baahidiisa kee dhamaystiran abjad banu ayuu keenu yahay mise wuxuu yahay alphabet wanaga labadaas oo kala sheegno kale keebu noqonaya alphabet imika Soomaaliga hadda u fiirsato alifku xurufteenu kamid yahay ya laakiinse inuu ma jiro shaqal unbu inoo yahay shibanay noo maaha inuu shibanay noo noqdo abahay alif imika mital loo kale suugaanta markaynu gabayno suugaantana waxay leedahay xarafraaceenna waxa laga tiriyaa 20 kan xaraf ee aynu shibanay aynu leenahay iyo alifka oo inoo ah inaga xaraf inoo ah oo inoo ah shibana caadi oo imika inaan kan aruuteena yarnaa sida shibanaha isticmaal aruuteena kama garanaysa hadda tiraa hees alifa ama gabay alifa ayuu qofkaasi tiri ma garanaya laakiin hadda tiraahdo waa shantii a e i o u shibane markaas fahmaya oo la isku daray ayuu fahmaya marka halka waxa arkaysa inuu qalad ku jiro ayaad arkaysaa imika mitan loo kale marka imika da qorayo ama hu aan qorayo de waxa weeyaan da waxa halka ku jira waxa ku jira alif waxa lagu garto marka halka kalena ma lawaqayo haddaan ku noqono imika codadkana nidaamkan phonology-ga haddaan ku yar noqono waxa lagu kala saaro shibane iyo shaqal waxay leeyihiin nidaam la raaco shibane waxa weeyaan shaqalku horta waxa weeye dhunta ka soo baxa oo aan mawaqsimanay afka wax isortaaga aan kala kulmin oo imika haddaan dhahdo afka ma kala haya o intaydan carabkuna hawadu ma xirayo dibnuhuna ma xirayaan laakiin haddaan imika ba idhaa hawadu aan xiray haddaan ta idhaa carabku xagga sare ku dhago hawadu xiray xarafkan haddaba alifka waxa loo yaqaanaa glottal stop loo yaqaanaa doob xiran halka imika doobta ayaa marka tiraahdo isxiraysa way isxidhay in isxidhaad mooysa markaan ma kala haddii shaqal kasto ku aragtay in isxirayso waxa weeye alif laakiin haddaan isxidhay imika haddaan ma kala haddaan isma xirayso doobti kaas waa shaqal marka waxa weeye shaqalkii shibiriisi loo kala garay hadday doobtu isxidho alif haddii laakiin doobtu isxidhi weydo waxa weeyaan waa shaqal ama waa xarako haddii si carabiga la waa xarako oo carabiga xarako waa shaqal haddii kale waa shaqal ma faad marka beriga sidaas loogu qaldamay oo qabyada imika Soomaaliya ku jirtaana uu qayb weyn ka yahay alifka aan xisaabta lagu darsan صح firgin baa loo qaatay alifka firginada sumad maaha oo sumadahan aynu siinay ee imika baada sumad gaar aynu siinay taada sumad gaar aynu siinay alif ilaa kii sumad gaar laba siin waa sababta marka keentay afkeeni uu murugo oo imika la kala saari waayo xaraf kasta oo waxaad ogaataa ku bilaabmaya shaqal ku bilaabma sida abo eedo muxuu ahaayay agagaar waxa shaqal ku bilaabmayo eebe shaqal ku bilaabmaya alif ku bilaabma marka waxay haydinayno sumad alifa loo sameeyo oo gaar oo xarfi xitaa laga tagin loo qaato oo wayniga xarfo dhowr ka tagnay laakiin qaadan mid kamid ah xitaa in sumada looga dhigo alifka ilaa isma laha farta waxaan qorayo iyo dhawaaqana siinaya isma laha imika xada inagu xaabeen ugu dhawaaqna laakiin qolada alphabetka isticmaasha xa ugu dhawaaqan egas bay ugu dhawaaqan ma garad marka imika caada c bay ugu dhawaaqan inagu caabeen ugu dhawaaqan inaga siisanay oo sumadan taa doontaad ka dhigan kartaa marka kan laga tagay alifkan sumadaha laga tagay in alifka mid la siyaabay si ay baahida ay nooga daboosho wayna badan yihiin qabyadu dee uu leeyahay berigaa soo baxday oo qabyooyinkiisa haddaynu in yar guud marno dee waxa ka mid a muxuu ahaayey shaqaladan aynu imika sheegay shaqalada waxaynu qaadanay 10 shaqal 5 gaagaaban iyo 5 dhaadheer laakiin se shaqalada Soomaaliga 40 weey codadkaynu leenahay dhawaaqaynu leenahay marka loo eego afkeena dhawaaqaynu markaynu eegno ilaa dhawaaqayna maamulaya halka qaladka laga sameeyay waxa la yiri sida muxuu ahaayey isku dhigid kala dhigid wax jira ma hadda isku dhigid kala imika haddaan qoro dul haddaan imika qoro iyo dul haddaan qoro waa isku qoraa Soomaa laakiin dhawaaqaynu kala duwan halka maxaa ku jira waa shaqal culus iyo shaqal fudud iyo
way kala duwan yihiin imka hadaan u ku idhaa iyo hadaan u idhaa way kala duwan yihiin midna waa xoojimo midna waan culays baan soo u baahnay waan cuslay midna waa fudeeyay u baahnay marka dul ta ku jirta oo dushii sare ah waa fududahay laakiin dul waa tii cuslayd marka waxaynu haysanaa 10 shaqal oo fudud iyo 10 shaqal oo culus soo halka labaad kuma haysid aadiyad soo labaad kuma haysid haddana 10 shaqal oo dhadig ah si dhadig loogu dhawaaqayo iyo 10 shaqal oo si laba loogu dhawaaqayo 40 shaqal ayaynu halka ay shaqal ay noqon lahayd shaqaladeed oo calaamado loo sameyn lahaa waana halka keen lahayd maanta in farteenu ay saldhigto ku walba caad loo qabto oo ay xasisho oo ay saldhigto oo ka baxada ilaa afka hadii la doono la aqoomeeyo waa inuu afka idee saldhiga qoraalka waa inuu saldhiga marka qabiyada halka ku jirta waa qabiyada 72kii sidaa fudud loogu sameeyay in kastoo beriyaana horta ay wax badan markaas qabteen oo dadaaleen wax badan qabteen oo marka kelmadii lagu garan karo jumhurka jirta waa la garanayo laakiin markii gooni istaagto ayay mushaki ugu imanayaan marka tii la sii horumarin lahayd 72kii waxa markii hawshu horisa la qabtay afkuna uu koraa waa in marba wax lagu daraa marba qabiyada soo bax qodxaha laga guraa marka wixii lagu la dhaqan galiyo qodxaha imanaya qodxii laga guraa tii ka dambeeyay lahayd ayaan dhicin markii dambe tii uu burburku dhacayba وهذا إن كل وارنا واحد شريك قبيلين بدن إن بل هذا واحد صهر القديم كإيب وكله كلمة ده ضد كقاب بعد جمهور ما وهذا إن كمشرت مقعد إلهي وإن وأفك الصومالية أيام بكتم يجو إن إلهي يقنا إن بعد كور محد حكى هسا إنه ضد أيام اللي تلعب هرت قال له صهر القاب Facebook iyo social media aad loo wareejiyay horta marka koobaad waxaan dadka u cadeynaa afku sidiisa weyn afka sheekeynayna afku waa dhawaaqyo dhawaaqyadaasi waa wax la isla gartay imika soo kaasi damaha wax inoo yimid hadaynu magac u bixino aynu waxaynu doonanaa jiica hadaynu kaadaynu jiica u bixino kaas ma aha inaga isla garanay kaas buu inoo ahaanaya sababta waxa weeye imika ereygan geed markaan leenahay Soomaali baa isla garatay Arabina shajara baa isla gartay oo imika hadii geed ku tiraadna Carbeed ma garanayo laakiin hada shajara ku tiraad markii uu fahmay kan ninka Ingiriiskana tirii buu isla gartay afka Ingiriis marka waxa weeye afka waa say dadku isku gartaan marka af Soomaaliga qof kasto imika Soomaalidan eebe ku tiraado maskaxdiisa dasan ku soo dhici maayo wax kale ku soo dhici mayso wax ku soo dhacay Ilaahay ya ayaa ku soo dhacay aad marka taas waa taa horta afka sida horta loo garto inuu afku u dhawaaqi yahay la isla garto haddaba haddaan u soo noqono ereygan asalkiisa eebe asalkiisa eebe culunta nidaamka la yiraahdo etymology-ga ayaa waxa salka ereyga dib loogu noqdaa ereygan eebe dhiskiisu wuxuu la dhis yahay ebiyan waxa suu ebiyan yahay wax dhameystiran imika hadaan ebi ku raahdo waxa dhameystir wax qabiyo aha dhameystir hadaan ebi ku raahdo ebiyan u dhameystiran yahay ereygan haddaba ebi iyada la socotaa waa tii qofka lagu amrayay imika kari haddaan kar bay hato ma kari haddaan ku adigan ku amraya kari kula mari haddaan ku dhahdo iyadaas waxay sheegaysaa qofka la hadlayo la amraya mari fuli ma garanaysa oo ful ka timid mar ka timid kar ka timid iyadaas waxay sheegaysaa marka qofka la hadlayo iyada haddaynu ka jarno halka kale waxa jirta dhammee erey la yiraahdo waxa inoo dhameystir dhammee baan ku soo dhameedaas iyaduna eedaasina waa qaab kale oo ficil amar ku dhaco imika dhammee kaxe saasoo dhacaan eedaasaan iyagana ka jaraya maxay noo soo haray marka dhan iyo eb iyo noo soo haray Soomaa waxaan raacinayaa marka xarafkan la yiraahdo wuxuu ka dhigaa faacil buu ka dhigaa ereyada imika cun haddaan doonayo faacilna ka dhigo kii cunayay waa cune qor haddaan doonayo faacil waa qore fale haddaan doonayo ka dhigo eedaasi waxay samaysaa marka waxay ka dhigtaa wixii kii waxaan falayay ee yeelayay bay ka dhigtaa abtii aynu haynay iyo dhantii aynu haynay haddaynu imika raacno waa dhamme iyo eebe ayaynu haynaa dhamme eebe maxay tahay ilaa waniga nin waa dhanbay lamid ahayde la macna ahayde waa dhamme marka eebe uu dhameystiran yahay waa dhamme ereygaa Soomaaliga ahay siduu Ilaahay u fasiray miyaan ahayn sifadiisii saxda ahayd aadiyan ilaa Ilaahay waxa weeyaan abuurka kale oo dhan baa dhameystirnay khaliq uu dhameystiray aadiyan ya waa dhamme ma garata marka eebe ma wax kaga wanaagsan Ilaahay lagu sifeyn lahaa karaa jiray af Soomaaliyeed oo aan ahayn dhamme aan la macna ahayn marka waxa weeyaan ereygaas erey sax ah oo sida macnihiisu yahay oo la macna dhamme weey marka Soomaali ahaan loo yeeyo Soomaali ahaan marka aadiyan
وهجاج إن جوليد أحمد عمر هذا داود يلوم هالسيهم كان هو برنامج كي كوباد موضوع عن الاستيلاء أنا كلها فكرنا مثلا أنا كوي أقولنا أفكار إيو إن لحريرة أقولنا الله المعشى وسوق أنت هنوجي سوق بدونه إيو جود هامبا أنت الله قابا هدي بورالك النقطة برنامج ده بيان كل مدونات عبد العزيز مرسل أيا سجنا هذا جماعة النقيا ودنك كمرة إيو مقبهيها إن قال قريب قاطي إن تاني يكون ضمبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.